agaasimaha hay'adda sirdoonka Mareykanka ee CIA-da William Joseph Barnes ayaa Muqdisho booqasho lama filaan ku yimid waxaana uu la kulmay madax sare oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. William Barnes ayaa waxa uu la kulmay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo agaasimaha hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed ee Nisa Mahad Maxamed Salaad. Kulanka oo ka dhacay gudaha garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho waxaa looga hadlay arrimaha iskaashiga amniga iyo la dagaalanka argagixisada. Macluumaadka la helayo waxa ay intaasi ku sii darayaan in aad kulamadaasi loogu gorfeeyay laba arrin oo xasaasi ah kuwaas oo kala ah kow dagaalka Al-Shabaab oo dowladda Soomaaliya ee Mareykanka ka dalbatay in si buuxda looga garab siiyo sidii duqeymaha iyo ka hortagga shabaab dhaqdhaqaaqyada kooxdaasi loo sameyn lahaa iyo midda labaad oo ah iskaashiga ay Soomaaliya iyo Mareykanku ka yeeshaan amniga guud ahaan gobolkan geeska Afrika. Arrimaha la gorfeeyay waxaa ku jiray xiisadda Soomaaliya iyo Itoobiya ee salka ku haysa damaca badda Soomaaliya ay ka qabto dowladda Itoobiya. Mareykanka ayaa Soomaaliya muddo dheer ka gacan siinayay duqeymaha ka dhanka kooxda Al-Shabaab inkastoo waayahan dambe aad loo dhaliilo doorkiisa dagaalka adag ee dowladda Soomaaliya ku qaaday kooxda si looga tirtiro saaxadda. Agaasimaha CIA-da Mareykanka William Joseph ayaa labadii maalmood ee la soo dhaafay sanfar ku marayay gobolka geeska Afrika. William Joseph ayaa maalin ka hor Nairobi kula kulmay madaxweynaha Kenya William Ruto iyo agaasimaha sirdoonka dalkaasi Kenya isagoo kala hadlay arrimo ay ugu xooganeed dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab oo caqabad ku ah dalal Soomaaliya ay ka mid tahay. Wararka waxay intaas ku sii darayaan in sidoo kale agaasimaha sirdoonka Mareykanka iyo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ay isla soo qaadeen sidii dowladda Mareykanka ay u laba jibaari lahayd taageerada ay siiso dowladda federaalka Soomaaliya. Imaatinkiisa waxay ku soo beegmaysaa xilli dowladda federaalka Soomaaliya ay xiisad kala dhaxaysay Itoobiya taasoo la xiriirta is-afgaradkii kowdii bishan magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya ay ku kala saxiixdeen madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed. wadamo badan oo caalamka ka mid ah oo ay Mareykanku qayb ka tahay ayaa isgarabtaag buuxa u muujiyay dowladda federaalka Soomaaliya kuwaas oo sheegay inaan marnaba laga gorgortami doonin madax banaanida dhuleed iyo midda badeed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. sidoo kale hay-ado iyo ururo caalami ah ayaa waxa ay taageero u muujiyeen dowladda federaalka iyadoo maanta magaalada Kampala uu ka socdo shir degdeg oo aan caadi ahayn oo isugu yimaadeen madaxda dowladaha xubnaha ka ah urur goboleedka IGAD. shirkan oo uu iclaamiyay madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Gelle waxa uu ka dhacayaa magaalada Kampala waxaana iska diiday shirkaasi dowladda Itoobiya oo sheegtay in jadwalkeeda shaqo busy uu yahay kulankana ay dalbatay dib in loo dhigo walow IGAD arintaas ay hoos u dhigtay. shirkuna waxa uu ka socdaa Kampala. shirkadda abuurka Seasad dadka badi wax beerto beeraha tabcanayo aan idin ballaarshay waxaan idinku baaqa abuur baahsan oo wacan tala bixin dheeraad dawal loo bogaayo buufinaysa cayayaan qalab buuxa oo runa barbarkaad ka eegtana ku xaqabeesha weliga waa shirkad kulansatay khubaro aqoon iyo waayarinimo u leh horumarinta iyo tayeenta abuurada dalka uu leeyahay sida masagada oo dhowr nooc ah galeyda digirta looska gabaldayaha sisinta iyo waanbaha Capsum waa nooc ka mid ah abuurada masagada shirkadda Seasad ay soo saarto waxaana uu noqday nooca masagada ugu fiican xagga u adkaysiga cimilada iyo cudurrada ku dhici kara masagada wuxuuna ka sareeyaa wax dhalka 30% marka la barbar dhigo abuurada kale ee suuqada yaala. shirkadda abuurka Seasad waxay bixisaa tababaro ku saabsan sare u qaadida wax soo saarka beeraha ka ilaalinta iyo maareynta cudurrada aafiya dalagyada kala duwan ee beeraha dalagyada ku habboon cimilada xilliga jira iyo isticmaalka sunta iyo nafaqooyinka loo isticmaalo wax soo saarka dalagyada kala duwan ee beeraha iyadoo ay la kaashanayso shaybaarkeeda gaarka ah. shirkadda waxay wada shaqayn dhow la leeyihiin iskaashatooyinka beeraha dalka waxay kaloo bixisaa wacyigelin talooyin ku aadan. shirkadda waxay ka shaqaynaysaa dhammaan gobolada iyo degmooyinka dhulbeerashada ku habboon ee Soomaaliya. xarumaheeda ugu waaweyn waa Baydhabo, Kismaayo, Jowhar iyo Muqdisho. xarunta dhexe waxay ku taallaa wadada Maxamuud Xarbi degmada Boondheer magaalada Muqdisho Soomaaliya. xarunta warshadana waa wadada Buulo Jameeco magaalada Baydhabo gobolka Baay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. wixii warbixin iyo faahfaahinta dheer kala xiriir ciwaanada iyo telefoonada shaashada ku qoran.